wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qaayaha naga badan meel walba oo joogta waa saaxiibkiina Cakuiro Muqdisho TV-na waa naga daawanaysan galabta idin wacnaato faahfaahin ku saabsan qaraxyo mataana iyo dagaal toos ah oo lagu qaaday madaxtooyada Villa Soomaaliya. Laba qarax oo loo adeegsaday laba gaari ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan inta u dhaxaysa isgoyska Ceelgaabta iyo Ismaaciil oo ah bar laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya. Qaraxa hore oo loo adeegsaday gaari ayaa ka dhacay meel ku dhow bar kontarool ciidamada dawladda ku lahaayeen halkaasi qaraxa koowaad waxaa xigay weerar toos ah oo rag hubaysan ku qaadeen ciidanka ammaanka ee halkaasi joogay waxaana goobta ka dhacay dagaal xoogan iyadoo weli aan la ogeyn halkii ay ku dambeeyeen ciidamadii al-shabaab. Intii uu dagaalkaasi socday ayaa waxaa dhacay qaraxii labaad kaas oo uu fuliyay ruux waday gaari nooca raaxada waxaana markaasi kadib ciidamada ay daba galeen ama ay ku bilaabeen inay baxsadaan ciidankaasi rasaastuna ay goor dambe joogsatay. isgoyska Ceelgaabta ayaa waxaa ku soo dhacay jirka qof loo malaynayo inuu ahaa ruuxii ismiidaamiyey waxayna ciidamadu baadigoobayaan dablaydii weerarka soo qaaday. waxaa ilaa iyo haatan la xaqiijinaya dhimashada laba qof oo mid ka mid ah uu yahay ruuxii gaariga waday iyadoo dhaawac badan uu jiro. gaadiidka gurmadka ah ayaa goobta ku soo baxay si ay u soo qaadaan dad haddii ay jiraan ku dhaawacmay dagaalkaasi qaraara. wasaaradda warfaafinta ayaa la filayaa in ay war ka soo saarto qaraxyada mataanaha iyo weeraradii lala beegsaday goobaha laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya. halka daga daawanaysaan waa Muqdisho TV.